بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ما أنت تاريخ تاي لباتني كودي بشي لحاد لبكون لباتني اللح وحان ربنا هل كان أفكار تيضا يعارض إذا إنا كسو قبنو أنه بيش ريو وفاء هاي سو فرح ريحة سليمان waxaan ka hadlaynaa arrimo la xiriira wararka ayaanta ka soo cusboonaaday galmudug iyo dawladda federaalka intaba waxaan nahay beesha maanta halka joogta oo ku soo banaan baxday awalna ka mid ahayd beesha reexaaj Saleebaan ka mid ah waxaad ogtihiin waayahan galmudug inay ka jirto iyo caalamka doorashooyin shirkaygan maanta wuxuu taageerayaa shirki ka dhacay magaalada Dhuusamareebeed ee ay qabatay beesha ayr ku qabatay iyo waxgaradkooda ay ku qabteen magaalada Dhuusamareeb oo kaga hadlayeen galmudug inaan lagu qaban karin minguuris iyo maquunis midna inaan lagu qaban karin sidoo oo kale maanta dawladda federaalka waxaan baa ugu direynaa galmudug waa dawlad 7 sano soo shaqeynaysay waa dawlad lagu caanamaalay waxaan ka digaynaa in la isku dayo in wax loo soo minguuriyo haddana maquunis awoodeed lagu dayo ayaan ka digaynaa sidoo kale shirkan wuxuu taageersan yahay shirkii beesha Habargidar ay ka dhigtay Muqdisho oo arrimahaas oo kale looga hadlayay sidoo kale shirkii beesha Sacad ay ka dhigtay Gaalkacyo oo looga hadlayay galmudug inaan lagu dayi karin maquunis iyo awood sheegasho shirkaygaanina maanta sidaas oo kale ayuu ku samaysan yahay waxaan baan u direynaa dawladda federaalka ah oo madaxweynaha ka yahay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaan leenahay galmudug waa barwaaqo meeshan magaalada Cadaadona waa meeshii 15 beelood ee galmudug la isugu keenay waa meeshii galmudug laga abaabulay waa meeshii galmudug aan ka binaynay anigu waxaan ka mid ahay xildhibaanadii kugu soo dhaweeyay Cadaado ekis ximan iyo xeeb oo wax walba magac iyo mansab uga tanaasulay jiritaanka galmudug waxaan maanta diidaynaa in galmudug lagu dayo maquunis awoodeed intaas aan ka digaynaa sidoo kale waxaan ka digaynaa kuraasta boobka caadeysatay oo lagu caadeystay boobka inaan mar dambe la isku dayin in la boobo sida kursiga hob 71 oo kale ayadana waa ka digaynaa waxa kuraastaas iyo kuraas la mid ah loo caadeystay dadkii oo masaajidada jira in inta qof lagu magacaabo la boobo waxaan ka digaynaa mar dambe inaysan ku tiga soo laaban waxaan nahay beesha xaq u leh oo doonaysa oo u taagan waxaan soo dhaweynaynaa doorasho xor iyo xalaal ah oo ka dhacda galmudug waxaan la shaqeyn doonaa cidii doorashada ku guuleysata laakiin waxaan ka digaynaa boob maquunis iyo kufsi hore loo caadeystay intaas ayaan ku soo gaabinayaa sidii uu nabadoonku sheegay marka ugu horeysa halkan waxaan uga mahad celinaynaa Allah subhanahu wa ta'ala marka xigta baryahan iyo ayaamahanba waxa socday doorashooyin qof iyo cod ah annagu haddaan nahay beesha reer Warfaa waxaan taageersanahay doorashada qof iyo codka waxaan ku taageersanahay doorasho qof iyo cod xalaal ah waxaan ka digaynaa oo aan leenahay maamulka galmudug iyo dawladdu wax aysan heshiis ku ahayn inaanan aqbali karin oo minguuris ah sidii uu nabadoonka hore u sheegay waxaan sidoo kale halkan rabaa inaan ka sheegno ciidankan iyo qabaa'ilkan meesha joogaahi inay u joogaan taageerada maamulka galmudug ay ku taageerayaan hanaanka iyo doorashada ay maamulka galmudug hoggaan u tahay waxaan rabnaa inaan cadeyno inaan jiidaha ugu maqnayn dawladda federaalka taageeradeeda iyo inaan ka hor nimid khawaarijta falalka ay ka wado maamulka galmudug kulana shaqeynaynay maamulka galmudug in uu yahay maamul dawladda federaalka la shaqeeya
haddana dawladda waxaan ka rajaynaynaa inay sidaasoo kala noqoto maamulka galmudug mid wada hadal iyo wada tashi iyo is-ogol doorashada ay ugu dhacdo. waxaan sidoo kale dawladda federaalka oo aan u sheegaynaa inaanan aqbalaynin kursigii hob 71 in sidii hore ay wax ugu dhaceen oo boobka ahayd inaanan aqbalaynin. waxaan caddaynaynaa inaan nahay beesha xaqa u leh maanta inaan nahay. sidaa darteed waxaan taageeri doonnaa waddo kasta iyo wanaag kasta oo bulshadu ay ka hormarayso. waxaan ka soo horjeedsan doonnaa wax kasta oo keeni kara in xoog wax lagu dayo ama xoog wax laysku maquuniyo. naw haddaan nahay beesha warfaa haysow waxaan caddaynaynaa inaan taageersan nahay dawladda federaalka ah kuna taageersan nahay waxa wanaagga ah aanan ku taageersanayn wax kasta oo ka hor imaanaya maamulka galmudug oo lagu maquuninayo. sidaan ogsoonnahay madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor weligiis iyo aalihiis wuxuu la shaqaynayay dawladda federaalka ah annaguna sidoo kale aan ula shaqaynaynay. haddeerna waxaan aaminsannahay inay sidii oo kale wanaag ku dhammaan doonto, sidii oo kale in wada hadal lagu dhammayn doono insha allahu tacaala. sidaasaana taageeraynaa, waxaana qorraxda u taagannahay mar kasta amniga iyo sharafta iyo karaamada dadka reer galmudug inaan qayb ka ahaano. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. marka koowaad salaamta islaamka ayaan idinku salaamay. marka labaad annagoo taageerayna madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariyo qoorqoor. marka labaad annagoo beesha reer warfaayo oo diidan in xoog lagu hujuubo axmed cabdi kaariyo qoorqoor madaxweynaheenna sharafta leh. middeeda labaad waa salaamayaa ciidamada dhammaan anoo ku hadlaya ciidamada afkooda galmudug khaasatan reer warfaay. waxaan baa ka dirayaa meeshaan kursiga 71 reer warfaay ayaa iska leh inaan lagu qaldamin. madaxweynaha soomaaliya u sheegayaa, caalamka o dhan aan u sheegayaa. wasalaamu calaykum.